isu soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii ee dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay la gashay maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo sidoo warbixinta noogu soo diray wariyaheena Baydhabo nooga soo warama Cabduqaadir Iyeeyo isu soo baxan ballaaran ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay looga soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa waxa ka qayb qaadanaya dhammaan bulshadeynta Digile Marifle iyadoo maanta ilbaabada loo laabay goobihii ganacsiga si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan banaanbaxani ballaaran qowmiyadda Digile Marifle ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa maanta sheegay in ay kalsoonida kala laabteen dowladda federaalka ee Soomaaliya ugana baaqeen xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda beeshaas in 24 saac gudahooda ay ku yimaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay arrinkan ayaa yimid kadib markii kulan ballaaran ay ku yeesheen malaqyada waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelahaasi magaalada Baydhabo أحمد الشيخ حسن الشيخ الكالكالي أكيد إني سمعني ما يسمى قرب سيدنا والعليا لكن أنا ما أريد حسن الشيخ محمود هدعو حسن الشيخ محمود هدعو حسن الشيخ محمود هدعو أحمد ملوك ينتلها المالة تبدلك الدين من الفلوس بينك وكان كان الليل إلهي مرد تمي وانا حوي ما يشاقي حسن داهر نهري أحمد ملوك من حوي نسي حوي ما تأسكت لنا حوي أولوك أسعيك حسن الشيخ إيموس حسن داهر نهري أحمد ملوك من حوي نسي حوي انت هذا جوابك waxay dawladnimadu isniin ku bahiya sheegay ma ahayn dawladnimada mukubana Digile Marifle rawda dawli jeelu dal kale Hungary ayanu dal joddeegiu dal shokal kalsoomo dal shokal nibad jeelu Michael Buttonley, Mati dowladda hadasni lama barood ka baad malaagay Digile Marifle Michael Shirney madaxweynaha ra'iisul baarlamaanka xafiiska may aragtay ballanoo ka qaadana madaxweynaha warqad haniisiya tahayna inuu saxanii kala ballamay gobolada aragtay koonfur galbeed litagola inuu suwal ku dhasani la dhasa yaani kala ballamay may taayane intuu ballantiin ku bahay dawladdu ku bahay ona dawladdu ku tabiya idaayadki hadaleno badbalan dawladdu ku badi ona aragtayno weerasa dawladdu ma ku bano wani ku bahay madaxweynaha ni ku bahay madaxweynaha ni jawaabay wali dawladdu ni ku bahay oo farana madinta kodiya أنا يقول ديار جرو إذا ما لقيت السيدة من الكسر السرطان ديار جرو هنا ديار جرو ولا ومستني ما كبر ما دام كبير كور ما يكلم الشيء وكمان يقول لندن أمريكا أستراليا وهذا الدولة تتطور كا والله يكلم يعني لو أستراليا أمريكا إنجليزكا أمريكا
تنك بالله أعمل مداول وكسر معين كمل سوف برضه تسيبني وانجاتيني كما سوف يا ويلي وين عمر عواني حكم عن القراي تمر كيزا يا راجل تمر كيزا من إيشاني كني القرآن في مصر عاي مرنم كويرانو قلوبا فرانا كني ما لا عارفة حتامين وزنا كيزا مكي وانا المبني انت تولي فشاني والمن يماما وما يسامي أميسا بيقان راتي من كويرانو waxaan ambaaray aan dusha kaga tuuraynaa sheega addisababa maamulahaanna waxaan taageersannahay dhawaaqa ka soo yeeray odayaasha digil iyo mirifle labada gole ee dawladda ku jiray ee digil iyo mirifle waxaan leenahay sida aan annaga u qaadannay baaqa odayaasha ka soo yeeray idinkana inaa u dhaga nuglaataan oo iclaaminta odayaasha ay iclaamiyeen inaad si ugu fudud aa u timaadaan aa u dhaga nuglaataan dhawaaqa ka soo yeeray odayaasha midda kale shakhsiyadda axmed madoobe nin weligiis dawladda taageerayna ma ahayn nin wuxuu ahaa hawdku jira waxaan leenahay mas-uuliyiinta digil iyo mirifle siyaasiyiinta dal iyo dibad meelay joogaanba waxaan leenahay ka mid baa tihiin dadka loogu yeeray dhawaaqa odayaasha ka soo baxay inaad ka soo qayb qaadataan dadka loogu yeeray dalka ha joogaano ama dibadda ha joogaano oo digil iyo mirifle ah waxaan leenahay dad keliya looma yeerin labada gole dawladda dadka ku jira si loo wada tashado wada tashiga oo si dhaqsaha u furmo waxaan leenahay dal jooga ama dibad jooga waxaan leenahay waxaan idinku soo dhawaynaynaa gacmo furan inaad soo gashaan cabdiqaadir xasan TV-ga caalamiga Somside عيسى عبد العيسى Somside TV